Welcome to Mogadishu Cooking, the kitchen for Somali delicious food. Cuntada macaan Soomaalida. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin wada salaamay dhammaantiin khiyaaray. Kusoo dhawaada Mogadishu Cooking. Maanta waxaan maxaa la yiraahdaa aan sameysanaynaa bariis iyo kalluun. Kalluunkaas oo marna bariiska aad ku cuni kartid, haddaad doontidna casriyaad ka dhigan kartid sidiisa aad u cuni kartid. halkan iminka waxa ii yaala sixniga waxaan kusoo shubtay hayl waxaas waxa weeyaan waa baxrasaaf keeni caadiga ahaa weeyaan caleenta halka taala maxaa la yiraahdaa waxa kale yaala waxa weeye waa milix hayl qorfe iyo filfil intaas ayaan bariiska ku dalacayaa iyo subaga halka ii yaala batarka halka ii yaala bariiskii oo soo meeray oo adiga ii yaala ilaa iyo 30 daqiiqo na waa kan imka waxaan soo qaatay waa digsigii aan ku dalacan lahayn bariiska marka digsiga insha Allah waxaan ku daray saliidan markii hore ku shubay saliidu markay isoo kululaatay ayaa waxaan ku daray basashii waxaan imka ku dhex riday waa basashii iyo basbaas akhtar ama basbaas cagaar qof walba sidoo u yaqaano basasha ayaan ku shiilayaa halkan waxa ii yaala waxa weeyaan milixdii iyo filfishii iyo maxaa la yiraahdaa baxrasaafkii iyo qorfe weeyaan baxrasaafkaas Soomaaliya guriyaha hortiisa inooga bixi jiray aad ayuu cuntada u macaaniyaa wuuna wanaagsan yahay guri hadda Soomaaliya aad joogtid gurigaaga hortiisa aad ka soo guran kartaa maxaa la yiraahdaa basashii way inoo soo shiilantay in yar waxaan ku soo daray iminka batar ah waxaan ku soo daray maxaa la yiraahdaa sabiib aan soo meeray iyo dabacase ama maxaa la yiraahdaa carrot aan soo meeray ayaan ku daray marka iyagaan isku yara shiilayaa bariiskina halkan uu yaala isagoo aan biyo ka soo miiray marka insha Allah wasla arki doonaa hadii la yiraahdo markaan isku dareen soo noqonayna bariiskan easy weeyaan aad buu easy u yahay waxaan imka ku soo daray waxa weeyaan waa yogurt ka subag gale weeyaan oo fat kale oo balaynka ayaan ku soo daray imka bariiskani oo aan soo miiray oo biyo ka soo miiray ayaan waxaan ku soo dhex daray digsiga ku dhex riday marka maxaa la yiraahdaa cabaar wax yar baan isku yara shiilaya markuu dhex galo isku shiilmo ayaan waxaan ku darayaa biyo aan soo karkariyay katalka kabacdi qaybtana markay noo dhamaato qaybta kale aan bilaabanayna waxa weeyaan kalluunka insha Allah hadii la yiraahdo waxa aan ku darayaa waxa weeyaan waa sonkor dadka qayb baa laga yaabaa inay la yaabaan sonkorta bariiska lagu daray laakiin sonkorta bariiska way hagaajisaa aad ayay u macaanaysaa bariiska marka sonkorta lagu daro wax yar sonkora waa hal malgacad oo sonkora soo shiilmay bariiskeeni imkana waxaan ku daray waa biyihii ayaan oo soo karkariyay katalka ku soo karkariyay aad isu lebrogay ayaan ku daray bariiska cabar markuu yara shiilmay asxaabi waxaan u gudbinaa imkana qaybtii kale maxaa la yiraahdaa kalluunka waxaan u googostay dhuudhuub halka waxa iigu jira wax weeyaan basbaas waxaan kale aan ku daray wax weeyaan barbariika ama barbarooni cas oo shiidan waxaan ku daray maxaa la yiraahdaa milix choice filfil sactar oregano waxa kale aan ku daray waxa weeyaan waa mustard waxaan ku daray yogurt plain yogurt baan ku daray isagana waxaan kale ku soo daray waxa weeyaan waa daqiiqdeedna plainka ah waxa kale aan ku darayna waxa weeyaan waa rooti shiidan waa rootida caadiga ah oo shiidan oo guriga aan ku shiitay waxaan imka ku daray waxa weeyaan waa subag intaas ayaan ku walaaqayaa waan is dhex gelinayaa intaas maxaa la yiraahdaa
biyana waxaa kale aan ku daray waxa weeyaan waa biyo yar intaasan si fiican markaa isku dhex gelinayaa kabacdi kalluunka ayaan isagana dhex gelinaya waan ku dhex walaaqayaa marka aan intaa kusoo dhameeyo waxaan ku xidhayaa markaa bac baan ku xidhayaa kalluunka wuxuu yaalay muddo adiga 30 daqiiqo ah ayaan u daayay intuu is dhex galayay kabacdi markuu isu soo dhex galayna waan dubay kalluunka sidan loo sameeyo maxaa la yiraahdaa bariiskaad ku cuni kartaa isagoo kaligiisa ayaad cuni kartaa salad ayaad ku darsan kartaa maxaa la yiraahdaa waxaad ka dhigan kartaa casariye aad ayuu u macaan yahay marka basbaaska yar iyo loo samaysto kalluunkani waan soo qaaday cabaar buu yaalay waan soo qaaday waxa halka aan kusoo shubtay waxa weeye waa roodhi shiidan oo aan ka soo iibshay dukaanka loogu talagalay kalluunka in lagu shiilo laakiin tii hore ana shiitay roodhintan qalajiyay ayaan anigu dib u shiiday roodhida ayaan dhex marmarinayaa kalluunka kabacdi waan shiilayaa aan isla aragno insha Allah kalluunkani waan soo marmariyay saliidina way karkartay saliidii ayaan ku dhex ridayaa maxaa la yiraahdaa marka insha Allah saliidana aad ayay kulushahay laakiin dabku waxa weeyaan dhexdhexaad buu yahay dabku xoog uma kulula sababtoo ah dabka hadaad xoog u kululeysid cuntadana kuma bislaanayso wixiina uu ka gubanayaa laakiin dabku gaaban yahay saliidana waa saliid aanu dhuuqaynin saliida kalluunka biyaha uu iska daadinayo kalluunka waan soo shiilay waa kan maxaa la yiraahdaa halkan waxa iigu soo bislaaday isagana bariiskii marka sixnigaas iminka meesha yaala ayaa waxaan ku ridayaa bariiska yacni waxaan ka wadaa qof walba sidii uu haddii uu caadi kalluunka kaligiisa cuni lahaa iyo haddii bariis lagu cuni lahaa labadaba ku qurux badan yahay laakiin marnaba salad inuu ka maqnaado maaha cuntada salad maxaa la yiraahdaa saladkii ayaan kusoo daray iyo kalluunkii waaniga diyaariyay maasha Allah kalluunkii yacni sidiisa loo cuni lahaa oo casariyaha laga dhigan lahaa na waa kan isagana sidan aan usoo diyaariyay qof walba siduu jecel yahay ayuu cunayaa waxa halkaa ii yaala waxa weeyaan waa waxyaabo badan isku dardaray weeyaan isagana insha Allah haddii la helaado waan idinla soo qaybsanaya qaabka aan u sameeyey marka wakaas ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa intii aan haysan in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo intii haysatan in ilaahay uu siyaadiyo waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa weeyaan muqdisho cooking oo idin leh Soomaaliya noolaato. Thank you for watching Mogadishu Cooking. Please don't forget to subscribe, like, share and comment.